adeegyo caafimaad oo si lacag la'aan ah loogu caawinayo bulshada danyarta ah ayna iska kaashanayaan cisbitaalada Kalkaal iyo Apollo oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo dalka India ayaa ka bilowday caasimadda dalka. warbixin warkaani ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyahana Cismaan Maxamed Aad. adeegan caafimaadka oo iska kaashanayaan cisbitaalada Kalkaal Hospital iyo Apollo oo ku kala yaala wadamada Soomaaliya iyo Hindiya ayaa maanta ka bilowday xarunta cisbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho iyadoona ay fulinayaan dhaqaatiir u dhalatay wadanka Hindiya kuwa oo u jooga dalka Soomaaliya inay caawiyaan bulshada Soomaaliyeed. adeegan caafimaadka oo ah mid bilaash ah ayaa ugu horeyn waxa sharaxay Dr. Ranjid oo ah dhakhtarka howlaha guud ee cisbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho iyo Dr. Rakesh oo ka socday cisbitaalka Apollo ee dalka Hindiya iyagoona ka hadlay waxyaabaha ay qabanayaan muddada uu socdo adeegan caafimaadka. Assalamu alaikum Somalia. I am Dr. Ranjit, Medical Director of Kalkaal Hospital, and my friends from India also. I am from India, and one of my friends. Dr. Halagman wuxuu ka mid yahay saaxiibadayna wuxuuna ka yimid dalka India halkana wuxuu u yimid inuu ka qayb qaato gurmadka caafimaad oo loo fidinayo bulshada Soomaaliyeed oo bukaanada ah taasi ayaa sababta kaliya ku kaliftay inuu yimaado Soomaaliya. wuxuu ka socdaa cisbitaalka Apollo ee dalkaas India ku yaala gurmad dhanka caafimaadka ah ayuu ka qayb qaadanay inuu u fidiyo bukaanada Soomaaliyeed. When we came here, as Sunny was saying, it was looking like we are going to a place which is going to be dangerous. It's not so. And I mean, I can understand there are a lot of patients waiting, and we can do whatever is best for them. We work in Apollo Hospital in Chennai, which is one of the JCI accredited hospital, which is like any hospital in the West, but it doesn't charge like Western hospitals. And we have this accreditation authority which does the certification of the. waxaanu doonaynaa inaanu caawinaad u fidino dadka bukaanada ah Soomaaliyeed. waxaan filayaa inaan waxyaabo badan oo caafimaad oo nooga faa'iideysan doonaan ka cisbitaal Apollo ahaan. waxaanu filayaa in adeegyo caafimaad oo aanu ka hirgelin doono gudaha Soomaaliya si looga marmo dalka dibadiisa ayna ka faa'iideysan doonaan dadka danyarta. Dr. Abdullahi maamul ku-xigeenka cisbitaalka Kalkaal oo dhankiisa isna la hadlay bahda warka fidisa ayaa sheegay in ugu talagaleen adeegani in bulshada danyarta ay ka faa'iideystaan. inta badan istaaladii Hindiya loo aad jiray halkaan aan keenay waxaan rajaynaynaa in wax yar moogi inta kale in laga maarmi doono in lagu daaweeyo dibadda oo aan ku sameey doono Soomaaliya insha Allah. waxaan soo dhaweynaynaa dhaqaatiirta ka socota Apollo iyo dhaqaatiirta kale saaxiibadeena la jooga. haddana istaalku si fiican u socdaa dhaqaatiir badan aan keenay haddana dhaqaatiir badan aan noo soo socoto qalitaano badan aan ku sameeyno dad badan la daaweeyay oo daawo iyo qalitaan loo sameeyay. intii aan ku sugnaa isbitaalka Kalkaal ayaa waxaa dhaqaatiirtu ay bilaabeen howlaha caafimaadka iyagoona dadku ay ugu jireen safaf kuwa oo doonaya inay ka faa'iideystaan muddada 3 maalin oo uu socdo barnaamijkan. tani waxa ay ku dareensiinaysaa horumarka caasimadda ay gaartay muddooyinka u dambeeyay ee dhinaca amniga maadaama dad fara badan oo ajaanib ah ay ku soo qulqulayaan magaalada Muqdisho kuwa oo adeegyo kala duwan ka qabanaya caasimadda. Cismaan Maxamed Aadan, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.